waa mid ka mid ah iskuulada ugu caasisan ee bixiya adeegyada kala duwan ee waxbarashada ee magaalada Muqdisho xarumahooda ay ku yaalaan. waxaa dhidibada loo taagay muddo hadda laga joogo 1 sano wuxuuna ka kooban yahay qaybaha kala duwan oo ay ka mid tahay diyaarinta carruurta dugsiga hoose iyo waliba dugsiga dhexe. xilligii aan booqashada ku tagay iskuulkan ayaa ardaydu waxay ku jireen daabuurka sabaaxiga halkaasoo lagu soo bandhigo barnaamijyo kala duwan iyo waliba wacyigelin loo sameynayo ardayda dhigata iskuulkaasi kuwaasoo intooda badan qayb ka ah nashaadaadka iyo barnaamijyada lagu horumarinayo tayada ardaydaasi. iskuulkan ayaa hoos taga wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya maadaama faraciisa weyn uu ku yaalo dalkaasi Kenya kaasoo ka kooban qaybaha kala duwan sida dugsiga hoose, dugsiga dhexe iyo dugsiga sare. balse dhawaan ayaa laga hirgeliyay magaalada Muqdisho xarun cusub taasoo bixinaysa adeegyada waxbarashada. Ustaad Yuusuf Sheekh Axmed waa maamulaha guud ee iskuulka wuxuu sharaxaad ka bixinayaa nidaamka waxbarasho manaahijta iyo waliba habka ay u qaataan ardayda cusub ee qaybta ka noqonaya iskuulkaasi. iskuulka Royal Muslim Primary School waxaa la furay qaybtan Muqdisho 2018 bishii Agasta la furay adoo waa sanad ka hor muddo sanad ka hor laakiin xarun kale uu leeyahay oo Nairobi ku taalo anagu hoos tagno xarunta koo Nairobi ka furantahay xaruntaana waxaa la furay August last year 2018 la furay. iskuulkan waxa uu si toos u bixiyaa waxa iskuulka kale uu bixiyo casharada iskuulka kale lagu baro ayaa halkaan ku barnaa. macnaheedu waxa waaye waxaan barnaa systemka oo Kenya ayuu ku baxaa sidoo kale wasaaradda waxbarashada Soomaaliyana warqadaha aqoonsiga ka haysanaa. waxyaabaha xoog saarna waxa waa iskuulka laba qaybood waaye qayb waa Islaamic oo sida magaca ka muuqata Royal Muslim maadaama oo xarunta koowaad ay ka furan tahay meel oo diimo kala duwan ay ka jiraan. waxaa xoog saarnaa ilmaha diintooda Quraanka waliba waa qayb iyo qaybtii maadiga ahayd oo ayadana ku xooganahay oo ay ugu horeeyaan maadooyinka English ha noqoto mathka science-ga IRE-ga oo Islaamic ayadana ah laakiin English ku qoran. waxyaabo waxaan aad isku daynaa ah in ilmaha nolol keenayo in ay helaan wax tayo leh inay helaan. Ustaad Yuusuf ayaa mar kale ka waramaya nidaamka isdhaafsiga ardayda ee ku aadan iskuulkan maadaama iskuulkan uu leeyahay xarumo kale balse qaybta hadda aan joogno uu yahay qayb dugsi dhexe oo kaliya. waxyaabo waxaan aad isku daynaa ah in ilmaha nolol keenayo in ay helaan wax tayo leh inay helaan. waxaa kaloo jiro oo aad u qiimeynaa core values-keena kamida ilmaha akhlaaqdooda discipline-kooda ayaa noogu horeeya in ay yihiin ilmo oo yani akhlaaqdooda wanaagsan tahay diiniyan ha noqoto iyo waxa ay baranayaanba. sidoo kale waxaan ku dadaalnaa inay noqdaan ilmo jecel wadankooda yaqaana maxaa la dhahaa value-ga iyo qiyamka wadankooda uu leeyahay kuna faana inay noqdaan waxbarasho tayo leh gudaha wadanka ku helan. marka iskuulka sidaas waa sax maadaama iskuulku Nairobi ka furan yahay faa'iidooyinka uu leeyahay waxa waaye ardayga noo jooga Muqdisho hadii uu u wareego Nairobi si toos ah xarunta kale u tagi karaa. yani uma baahna in imtixaanaad laga qaado uma baahna in hubin kale la marsiyo si toos iskuulka kale u tagi karaa. waa midda koowaad. waxyaabaha kale la bedeli doono waxa kamid ah uniformkeena uniformka xaqii kan waa isla mid waa labadii iskuul waa isku mid. ardayga Muqdisho ka taga Nairobi toos ugu biira ka Nairobi ka yimaadana Muqdisho toos ugu biiraya. daraasadda waxbarasho ee iskuulka ayaa si wanaagsan u socotay iyadoo ardaydu ay qaadanayeen casharada halka macallimiintuna ay ku holanayeen sharaxaadda casharada kala duwan ee manaahijta waxbarashada iskuulkaasi. aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo macallimiinta iskuulkan. nidaamka waxbarasho ee iskuulkan waa mid aad u wanaagsan sidaad ka arkaysid daabuurka. ardayduse waa kuwa la baro akhlaaqda iyo weliba ixtiraamka macallinka. sidoo kale ardayda Soomaaliyeed waa kuwa ku wanaagsan fahanka casharada. Soomaaliya sidii hore way ka soo fiicnaanaysaa. Kennedy Otaya oo ka mid ah barayaasha heerka caalami ee iskuulkan ayaa fariin u diray barayaasha kale ee jeclaan lahaa inay imaadaan Soomaaliya isla markaana qayb ka noqdaan macallimiinta in Soomaaliya ay la mid tahay wadamada caalamka. For that I've got a very strong message to the people out there, foreign teachers. I want them first of all to get rid of the fear. waxaan u dirayaa fariina in macallimiinta jecel inay yimaadaan Soomaaliya balse ka cabsoonaya
in Soomaali aysan wax dhiba ku qabin macallimiinta oo imaan karaan. Muddo dheer ayaan ku suganahay halkan, wax dhibana maan arag. qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulkan ayaa ka waramaya hamigooda ku aadan waxbarashada iyo waliba maadooyinka ay qaataan kuwa sida aadka ay u xiiseeyaan. ardaydan oo badankooda u badnaa kuwa da'yar ah ayaa wajiyadooda waxaa laga dareemayay xiisaha ay qabaan waxbarashada. magacaygu waa Cabdinaasir Axmed Cabdullaahi, waxaan dhigtaa iskuulka Royal Muslim Primary School. galaaskaygu waa G1, waxaan qaataa 9 maado. waxaan u jeclahay IRE. marka weynaa mustaqbalka waxaan rabaa inaan dadka masaakiinta wax baro. magacaygu waa Maxamed Saciid, aniga waxaan dhigtaa iskuulka Royal Muslim Primary School. galaaskaygu waa class 2, waxaan dhigtaa 8 maado. waxaan u jeclahay xiisadda Englishka. marka weynaa mustaqbalka waxaan rabaa dhakhtar intaan noqdo. magacaygu waxaa la dhahaa Yaasmiin Abshir Cali. iskuulkan waxaa ku soo biiray 8 August 2018. iskuulka waa iskuul fiican, maadada ugu jeclahana waa English. marka weynaadana waxaa rabaa inaan noqdo pilot. magacaygu Fatxi waaye, fasalka lixaad ah. iskuulkan waxaa ku soo biiray October sanadii 2018. magaciisa waxaa la dhahaa Royal Muslim. maadada ugu jeclahana waxaa la English. waxaan jeclahay marka weynaado inaan noqdo mustaqbalkayga engineer.